si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar janalkan wareer kalamaanow maalin dhawaaytay wala in bayaanideen shalayna jamaawa hayti hatta butuka ari bulshadiya bilaayadatiya buuqisdiyaan teeganya mas wala isbedeli war buuq iyo mashaakil ma jirin shalay iyo daraad iyo maanta midne xagee ku aragtaa adigu warnimayo buuqaana wuxuu ka bilowday jidadka xiran anigu jid la sii xiraya maahana mid la furaya ma arkin nimayo bulshadu waa dhiban tahay waxbana walaxaa ka daran sidii jidadka looga xirtana jadiinkana waa ka go'ay war waa saaxatay waana soo toosteene miyaydaan idinkuuna aydaan ahayn war dadku waa wada socdaa haddana waa kala socdaa warnimayo buuq baad ka hadlaysaane bugtii baa weli socota maantana iskooska tawfiiq dad shacaba ayaa lagu qarxiyey ummaddan meel uma fayaaba qaajaa horay u dilaysa qaraxna ma lagu sii wadaa koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan ikhyaaray weydin salaame salaanta waa kaa maqalnay xaa kaloo garab ya wareedhaa waxaa la yidhi kalamaan tartamayaal ma aha xilal u taagnaa tixdeediyo tiraabkuna ma aha tacab ku doondoon tiradii shaqada loo dirtay toosh u noqotaayoo tala bixin uunbay wadiya toosin weligeed war maye halkan rabe roobku mee helay weeyi ay ku mahmaadaa feeri ganjeelo foorgad muran fariis qabqabsi faydhowrka maskaxda waxaan idhi aniguna surinkii daraad aadigu sugtide ninkii beri ku siray haddaad saamaxdana weli kuu suntana ma ku seexataa warkaa waannu ka tashannee iga wallaydaan dib noo marsiinayn warnimada waxaa la yidhi xafiisyona garabtii la tegay jaga haddaan waayey xilka kii ku guulaystay oo ma ihin saaxiibe haddaan lacag u soo baxdo oon taga xafiiskaaga anigaaba soo dhaanshay oo caada qaataahe haddii aan saciishoodo oon qaylo kor u sayro oon madaxdu wararaysa rabin dabadda keenkeeno war ha layska soo kay xiro iga digtoonaada ama waan ka sii darahayaa ima taqaaniine oo horumarkii caalamka iyo dibudhiskeeniiba iyo wixii dhaqaaliya anfaco nala ku taageeray iyo maamul goboleedyada lala heshiin waayey iyo macal qorshihii sugi lahayd xamar ammaankiisa dawladdaas siyaasaysa baan toos u dhahayaaye ganacsiga khasaaroobay oo jidadka loo diday oo canshuurta laga qaaday iyo madax wareerkiisa etoobiya heshiis lala galoon cuduba faahfaahin wax la kala saxiidana shacbigu helin xogteediiba iyo qadar waxay maagantahay amase loo sheegay iyo macal kalluunkii baddoo loo fasaxay shiine iyo hadalla nuucaasa baan soo bandhigayaaye baloogaada maalmahan caqligu way rafanayaan intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin qaanqaanqaanqaadiyaad ka tagtay madaxtooyada soomaaliyaba dollar baa laga isticmaalay war madax ka hadli mahayna shacabkaan ka hadlayna naga taga war adeero ictiraafka la siiya horta nimayahabow shacabkii waa cabaadaa oo danihiisi meelow ka fushadow la'yahay dawladdina waa cabaadaysaa oo amnigii ku adkaadoy xasili laheed cadowgina waa cabaadaahoo qarixi meelow soo marshow la'yahayehow jidyaa jaardiina waa xirteen jadiinkiina jaafow uu yaal jidyaa jaardiina waa xirteen jadiinkiina jaafow uu yaal haye si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar janalkan nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatid war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ima weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi waddani maxay kula tahay halka Soomaaliya afari musafadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay now waranagu horanu goone aqoonsigan doonina adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay وهديه توشتي حالنا يوكو دافيني حاجات
hagaag ma u maqlaysaa wareer kalamaanow maalin dhuwaytay wala iinbayaanideen shalayna jimaawa hayti hata butuka eri bulshida bilaayada tiya buuqisidiyaan teeganya mis wala isbedeli war buuq iyo mashaakil ma jirin shalay iyo daraad iyo maanta midne xaggee ku aragta adugu warnimayo buuqaani wuxuu ka bilowda jidadka xihan anigu jid la sii xiraya maahana mid la furaya ma arkin nimayo bulshadu waa dhiban tahay waxbana walaxaa ka daran sidii jidadka looga xirtana jadiidkana waa ka go'ay war waa saaxatay waana soo toosteene miyaydaan idinkuuna aydaan ahayn war dadku waa wada socdaa haddana waa kala socdaa warnimayo buuq baad ka hadlaysaane bugtii baa weli socota maantana iskooska tawfiiq dad shacaba ayaa lagu qarxiyey ummaddan meel uma fayaaba qaajaa horay u dilaysa qaraxna ma lagu sii wadaa warnimayow madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed oo maanta hadlay wuxuu yidhi sidii aan markii hore ballan qaaday dowladda waxba kama sheegayo waxaana siyaasiyiinta mid xil hayay midaan xil haynba ugu baaqayaa inay dowladnimada ka shaqeeyaan waxaa kaloo uu yidhi amnigii faraha ayuu ka baxay shabaabaa lala heshiinayaana waan maqlayaa shabaab dekedda muqdisho canshuur ka qaata qaab loola heshiiyey ma aqaane marka hore aan aragno dowlad shabaab la dagaalanta waranintoo ka dararafadi lankastoo mas-uulnimaha mari weli shayba abniga faraha ka bahya la teega ma jiray ha aw shariif may kala niinshaani war sheekh shariif far uma haysiine wuxuu yidhi madaxweyne xasan sheekh waxaa lagu xamanayay inuu dowladda duminayo waana u tegey arrintaasna waan kala hadlay wuxuuna ii sheegay in ay been abuur tahay oo aysan waxba ka jirin gacantan xasan sheekh ka qabtay oo madaxweyne farmaajaan u geeyey waxaanan ku idhi xasan sheekh dowlad dumi maayee taladiisa dhegayso way ballameen ballantiina ilaa hadda farmaajaa lagala yahay waar guddoomiyihii hore ee baarlamaanka jawaari mayba erey 1945 ya waddankan ka dambayti wal xisbiye lileeyo marka reed ma intaas ka daray dadka inoo la bara waaye mi'naha xisbiyada la sheegow war madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud wuxuu yidhi hadda ka hor muddo 30 sano ku dhowaada ayaa keligii talis waddankaan haystay ilaa haddana waxaan ka soo kaban la'nahay dhibaatadiisii maantana waxaa ii muuqata in halkiina lagu celi rabo marka waxaan ka digayaa inaan arrintaasi dib dambe u dhicin oo aan lagu riyoon war aana helo boqol qof oo dooba taliyaas ama dheeraniin taliifateen lanko shilays inoo taliimaynan diidintiin dalka aryaadhaha wasiirka maaliyadda bayle wuxuu yidhi IMF waa ku qanacday sidaan uga soo baxnay sharuudaha deyn cafinta war walla weynay markaa idinkuna ma ku qanacdeen warnimiyow maysiin warsaday walla deebiyayo deenti lahagaadi uli leeyi ma aragne deenta ay lahangaadi war waxaa la yidhi nirignaylihii jalisayoo idaha nuugaysa naflahaaradana naaxdayoo nuuxsan kari weydey iyo weyla noogaan arkaayoo nasiib daran caana maxaadan uga lisan war xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka oo haysta dhalashada ingiriiska safiirkooday muqdisho kula kulmeen war xildhibaanada ingiriiska ka jiri ma aha war ma xildhibaanada ingiriiska idin maamula war waxaa la yidhi ninkii laba dal yeeshaa midkood waa dayacaya warnimayow madaxda maamul goboleedyada ee nairobi joogay waxay la kulmeen safiirkii gaabnaha ee maraykanka haba la kulmee ma xumee meeqa doolaro u qaybsahe horta nimayo maraykanku nagama uusan xishoon asagoo madaxdeenna dhirirkooda og markuu gaabow noo soo magacaabay war aanel walba ma oshiidi umuditaladu wayto wal antaliya waleeri aryaadaha baarlamaanka waxaa ka hadlaysan xildhibaano cusubaaba beriga baydhabo uga soo biiray war maanta waa kahor la'aan u baxday kulanka golaha shacabka wareedhaha waxaa la yidhi shacabkii magaalada marka dhibaataa haysata shabaabna dhinacuu ka go'doomiyaa la yidhi dhinacna dawladdaa ka go'doomisay war shacabkaada sheegaas hooba shabaab iyo dawladda marka fadaayaan hambinaayde marka maamuleena warnimada waxaa la yidhi jacayl 4.5 haddaan lagu qaybsanayn xisbina lagu soo dhisayn isteed goboleed miyay lamaana iscaashaqaa xiriir ku samayn karaan yartaan u dabaaldegoon hilowga ku doortayay taageerada ha iska lumin dastuurkii guurka iyo muddadii laynoo qabtiyo maandhaydkii qoysasko hortaa lagu kala tegiyo xeer hoosaadkana ha jebin war guurkiinniina ma 4.5 buu noqday war maamul iyo jacayl maxaa iska quseeya jirre siyaasadaa qabtaa war kaanya may hamiin iyo maalin kuunduru aysan dad lahawka haaye ciidamada danab oo Soomaaliland hanta u bari aryaa danab maahina waa dayuuradaha maraykanka waxa bari duqeeyaa la yiri daroona la yiraahdo ma taqaanina laga tagto war dayuuradihiina maahine ordo lagu kala kaxeeyo meesha tawfiiqda Allah idin waafajiyo si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar janalkan